الحمد لله waxaan filayaa su'aashan ee wadamada westernka iyo galbeedka ka timid ilmaha westernka jooga innagu saan ka haysano ee sida westernka uu ka yahay waa kala labo wadamada galbeedka ilmaha dawladda leh waalidkuna wakiil u hayo way dawladdu inay farageliso iyo inay ka qaadato haddii xilkii sidii rabtay u gudan waayo ama ay dhaliisho bay keenaysaa arintaas dawladdu ilmaha inay leedahay iyada waxbarashada ka bixisa iyada caafimaad ka bixisa iyada biilkiisa iyo cuntadiisa bixisa iyada waalidka iyo cid kastaba ka waardiyeysa marka waxa meeshan laga hadlayo waxaan rabaa qofka daawadaha iyo dhageystuhu inay fahmaan ha u qaadanin ilma adu aad dhashay ilmahaagiya waxa rabtan aad ka samayn karta meesha ma yaalo ilmaha waad dhashay laakiin dawladda aad u dhashay galbeedka dawladdaana mas'uuliyadiisa iyo xilkiisa iska leh iyadaana hadday kugu aamintay kugu dayn hadday kugu aamini weydana ka qaadan duruufta noocaasa weeye duruufta la joogo intaan su'aasha jawaabteeda gelin waxaan rabaa inaan iraahdo waxani waxay ka mid tahay sababaha in badan culimada ay u yiraahdaan war ilmaha iyo ciyaalka carrada gaalada ka soo qaada sadarteed baan munaasabadan rabaa inaan ku baraarujiyo meeshaasi tan waa hal qadiyad laakiin 10 kale oo ka daran iyo 10 kale oo ka sii khatar badan baa ku xeeran ilmaha iyo ubadka arlada gaalada aad ku haysaan wanaga arlada muslimka ama xataa carra gaalo ilmihiin idinku aad leedihiin oo awood iyo tasarrufka aad xaq u leedihiin war ilmaha hal la geeyo intaadan ka soo baxo ilmaha carruurta inaad meel kala geysaa haddaad awooddo waajib kugu ah meel kale inaad geyso baa waajib kugu ah haddii aad awooddo haddii aadan awoodin meel kale inaad oo isagu ka badbaadi kara baan ka hadlayaa hilibkan xaaraanta haddii aadan awoodin meel kale inaad geyso oo ficlan ama xaqiiq ahaan aadan awoodin meel kale inaad geyso waddankana aad ka sii qaadana aadan awoodin ama ay wakhti kugu qaadanayso inaad arrintaa u diyaariso kadib waxay u baahanaysaa ilmahaas haddii aad tiraahdo ma jirto maxaa dhacaya haddii ay dhacaysa dhib ka badan oo ilmihii in la qaato oo carrag qoysas gaalaha loo geeyo irtikaabu akhafi dararayn baa la yidhaahdaa oo baabu daruuraat tubiixu lmaxduuraat bay geliyo adigoon raalli ka ahayn diyaargarow iyo meel kale saad uga danaysan lahaydna ku mashquulsan oo waqti iyo dadaal gelinaya haddana inaad ka aamusto oo siinta aad ka aamustaay baabu daruuraat bay geli haddaan wax weyn ka dhacayna meel kale aad geyn kartana oo aan lagu qasbaynin dee meesha kale inaad geyso ama aadan yeelin baa waajib kuga bilaa